sidoo kale waxaa jirta xisbi la yiraahdo Respect Party oo ay maamusho gabar muslimada xisbigaas oo si aad iyo aad maaragtay looga taageero dhinaca Birmingham Zakariya su'aashan weydiinayo waxa weeye Zakariya xisbigan ay gabadha muslimada ah ay maaragtay taageerto quwadu ku leeyahay dhinacan markii loo eego wadankan Ingiriiska bismillaahir rahmaanir rahiim xisbiga Respect waa xisbi hadda runtii wadankan Ingiriiska si soo xoogaysanaya awood badan waa uu ku leeyahay community-ga dadka muslimiinta ah hase ahaatee haddana xisbiyadan waaweyn ayaad moodaa Soomaalidu iyadu laftooda in ay awood ku leeyihiin arrintii waxaan jeclaan lahaa inaan eego Soomaalidu horta marka ugu horeysa waxaa loo yaqaan unheard voice codka aan la maqal taana waxay ku tusaysaa Soomaalidu cod kuma laha wadankan waana muhiim inay bal fahmaan systemka wadankan khaasaan codka midda kale iyadana waxaa muhiim ah Soomaalida Mareykanka markaan barbar dhigo doorashada hadda uu ku soo baxay Barack Obama waxaad arkaysay senator fara badan waliba khaas ahaan John McCain oo kale ama Michelle Obama inay booqatay goobaha Soomaalida sida Rochester oo kale marka waxaad arkaysaa Soomaalida Mareykanka sababta ku khasabtay in ay helaan codkan inta leeg waxay fahmeen systemka wadankan waanu deganahay Soomaalidu ganacsi bay ku leedahay aqoon-yahano fara badan baa jira community fara badan baa jira waxaan aaminsanahay haddii marka Soomaalidu ay cod midaysan yeeshaan inay heli karaan Abuukar hadda wuxuu ka dhawaajin council u taagan yahay bal ay xildhibaano badan heli karaan laakiin waxa weeye in la sugeeyo awoodina hal meel la sugeeyo iyadoon xisbi khaas ah lagu soo koobin la fiirinayo danta xisbiga ay noogu jirtaan Soomaalida waliba anigoo ku daraya hadalka Zakariye iyo sii wada horta anagu halkan ma u fadhino inaan axzaab ama xusbi promote garayno oo arintiisa sameeyno qof kasta waxa uu entitled u yahay uu xor u yahay inuu xisbiga doono doorto qofku doono doorto it doesn't mean xisbiga aad doorato macnuhu ma aha macnuhu qofka aad dooratana ma aha waxay ku xiran tahay codkaaga waa la tirinaya registered vote wax la yiraahdo jiro guriga maalin walba oo la idin ku soo diraa qashinkayna ku darnaa warqadda laakiin waxaad ogaataa qashinkaasi qoomamihiisu waa kayna haysteen oo leenahay Soomaalidiiba sidan noqoto meel ma gaadhayaan caruurtoodiiba sidan waxbarashadii bay ku liitaan haddii aan gurigii dalka looga talinayay aanad ku jirin oo aan codkaagii la sheegayn oo aan la leeyihiin community-gaas dhibaatadaas ay qabaan Soomaalida cid ku maqani ma jirto oo waxay Soomaalidu tiri cidna uma maqna ceelna uma qodna haddii aynaan fadhiga ka kicin hadda doorasho soo socota 2010 ra'iisul wasaare la dooranayaa ka doonto dooro codkaaga is register garee hadda local authority-gaaga iska register garee sidaas samee ta kale ee labaad good news keen maanta ugu bushaareynay dadka Soomaalida waxay tahay in London Somali Youth Forum ay markii u horeysay diyaarisay ilaa 4 qof waa very quickly tani ay tahay oo ka tartamaya local councilorada xaafadaha Camden Brent iyo magaalooyin fara badan oo ay kamid tahay dalkani waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyartu in ay lead example ka noqdaan oo ay horseedaan in ay waxna doortaan lana doorto codkeena matalaan bulshadeena gaarsiiyaan bashbash iyo barwaaqo horseeda maxaan ku raadin dimuqraadiyad dhaba dabeed dalkana aynu ku yeelano layna ixtiraamo laynaga dhageysto waxaynu rabno kadibna aynu noqono ummad bulshada kamida cod la qiimeeyana leh taasaan rajaynaya insha Allah ta'ala weli waxaan ku wada jirnaa barnaamijkan codka Soomaaliyeed barnaamijkan oo maanta ama usbuucan baan uga hadlayno waxa loo yaqaano doorashada ama vote-ka sida la socotaan dadweynaha Soomaaliyeed markii loo eego dhinacan wadanka Ingiriiska mar ay televisionka Universal uu la kulmay George Galloway oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka wadanka Ingiriiska ayaa wuxuu yiri Soomaalida waa dad aad u dhaadheer balse waa dad aan la arkaynin ayagoo dhaadheer taasoo uu ka waday codeyntooda ama vote-kooda aan lagu arag wadanka Ingiriiska haddaba bal anagoo arintan rabnay inaan ka hadalno haddii aad rabto inaad fikradaada barnaamijkan ku soo darsato waxaad nagala soo xiriiri kartaa emailka aad ka daawanaysaa shaashada TV-ga oo ah dhalinta@tvuniversal.net haddaba su-aasheeda kale waxay noqon doontaa ummadii Soomaaliyeed sidii marka sidee looga jahal bixin karaa arintan oo looga dhigi karaa dad maaragtay active ah oo ka qayb qaata codeynta ama doorashada bal aan ku celiyo Maxamed iyo asagoo maaragtay inoo sii faahfaahin doona sida ay uga qayb qaadan karaan dadka Soomaaliyeed horta intaanan arrinka ka qayb qaadashada in yar waan soo noqon doonaa waxa muhiima maxaynu doonaynaa horta marka ugu horeysa inaynu fahanno sababta aynu u codeynayna waa maxay wax la yiraahdo strategic voting ya oo marka codkaaga oo habaysan oo dhisan oo lagu dhan yahay
in la codeeyo oo de markaa meel iminka kaba soo qaadoo kale dhibaato badan baa inaga haysataa xagga aqaladii way nagu yaryaryihin markaa haddii dawladuna iminka meelaha qaarkood sida Edmonton oo kale ama Haringey oo kale waxaa xooga la saaray in aqala badan la dhiso aqalada badan ee la dhisayo Soomaalidu cod kuma leh laakiin markaa haddii maanta aynu ahaan lahayn dee isku xidhan oo cod keliya leh waxa inoo suurtageli lahayd oo xildhibaano leh waxa inoo suurtageli lahayd in aqalo 5 maqsin oo 6 maqsin oo reeraheenan balbalaadan qaada in la dhiso markaa waa one example markaa waxaad helaysaa marka aad dhisan tahay codkaaguna uu yahay well organized waxaad helaysaa cod iyo muuqasho iyo waxaad kaloo helaysaa awood xoog leh waxaad helaysaa tixgelin waxaad kaloo helaysaa in aad ka qayb qaadato go'aamada muhiimka ah ee constituency-gaaga ama meesha aad degantahay marka intaasoo dhan waxa ay ku sahlaysaa in lagu dhageysto laguna soo dhaweysto partiyadan ama ururadan kale badan ee jiraana ay codkaagii ay ku dagaalamaan marka de waxaad noqonaysaa mujtamac jira oo muuqda arrinkaa uu walaalkay nabil ka dhawaajiyay waynu dhaadheernay ma muuqana waxbaa ka jira codkuna waa muhiim oo taasi waa mid inagoo dhan inoo wada yaala waxaa jirta siyaasad qofku daruuri maaha inuu siyaasi noqdo oo de MP noqdo ama councillor laakiin waxaad noqon kartaa active baad noqon kartaa markaa politically active ayaad noqon kartaa waxaad ka shaqayn kartaa markaa baseka waxaan la yidhaahdo oo dadkiibaad ayaad albaabka ku garaaci kartaa ood odhan kartaa registrationku waa muhiima hal la register gareeyo taa uu walaalkay Ibrahim uu ka dhawaajiya aada u muhiima oo markaa taana laftirkeeda de in la fahmo inay wadankan ka qayb qaadashada siyaasadda inay mid aada iyo aada u muhiim tahay haddii la doonayo in horumar la sameeyo waxaan kaloo ku darsanayaa walaalkay maxamed dhibcaha runtii muhiimka uu muujiyey haddii aad u fiiriso sida Soomaalidu aynu u gorgortano codayntu waa gorgortan haddaynu codkeena isu geyno oo inu table isugu geyno dawladda Ingiriiska waxaan oran karnaa ama xisbigan oo la tagno waxaan oran karnaa intaasoo qof baan nahay waxaasaanu idinka doonaynaa intaasoo cod baan idin siinaynaa maxaad noo qaban kartaan intaad kala tagtid baad xisbi kale uga tagi kartaa oo leedahay intaas cod baan nahay waxaasaan rabnaa maxaad noo qaban kartaan marka waa xoog waa awood anigu waxyaalaha hadda aan conservative-ka ugu istaagaya waxaa ka mid a arrimaha qaadka ka mid a dhibaatooyin kaloo badan oo Soomaalida ah baa ka mid a ballanqaad haddii la sameeyo waa Soomaalidu inay codkooda dhiibataa laakiin haddii aadan codkaaga dhiibin MP-gaagu wuxuu dareemayaa hadduu ku diido iyo hadduu wax kuu qabto iyo hadduuna wax kuu qabanba wax uu luminayaa ma jirto marka baqdinba kaama qababa dad badanoo waxaa jira uu sharciga ay dhibaato ka haysato intay dalkan yimaadeen oo waxay u tagaan local MP-googa u tagaan warqadaa lagu soo celiyaa cid wax u qabato fara badani ma jirto waxa aad samaysaa haddaba qofka sharciga dalbanayo maalinta aad sharciga hesho niyadda ku hay inaad isregister garayso dhibaatadii ku soo martay waxay maraysaa walaalka waxay maraysaa cid kaloo adiga kula mid ah maalinta aad gaadho the British nationality-ga ama citizenship-ka lagu dhaarinayo lagu leeyahay boqorada ku dhaaray iskama dhaaran sida macnaad ugu dhaaranaysaay oo de ilaahay baa lagu dhaartay laakiin systemka procedure-ka aad marayso inaad codkaaga dhiibato MP hadhow ku dhageysta oo hadday dhibaato ku haysato kaa aqbala oo haddii ay wax kale ku haystaan aad ula miciinsato baad helaysaa haddii kale ogowo imise jeer baad local MP-giina u tagteen wuu idin soo diidaa ama waad iskaga soo noqotaan wuxuu og yahay haddii uu wax kuu qabto iyo haddii uuna kuu qabana inaad lama ooyaan tahay lama ooyaan wixii ay Soomaalidu odhan jirtay inaad tahay weeyi markaa waxaad ku baabiinaysaa tan walaal codkaaga dhiibo local council-kaaga tag registration form la idhaabaa jira sidii dhigaalayaasha idin lama hadlayo waa iga dhiirigelin weeyi haddii aynu sidaa yeelno aamina 2010 codkeenu wuxuu noqon doonaa mid lagu diirsado oo lagu xisaabtamo inagoo nolol ah